deegaanka darar weyne oo 100 kilomitir ka kulaala dhinaca koonfureed magaalada Ceerigaaba ee gobolka Sanaag tobaneeyo qof ayaa ku dhintay dad ka badan 20 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ay halkaasi laba beelood ku dagaalameen. dagaalkan ayaa la xidhiidha aana qabiil sida wararku nagu soo gaarayaan mana aha markii ugu horeysay ee ay labadaasi beelood dagaalamaan. haddaba goor aan fogeyn ayaan wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Axmed Siciid Cige aan telefoonka kula xidhiidhay oo aan weydiiyey sida ay wax u dhaceen. cabdilxaafid oo wararka iga soo gaadhaya in degmada darar weyne oo ilaa iyo 100 kilomitir ka badan xagga koonfur ka xigta magaalada Ceerigaabo waxay sheegayaan in halkaasi dagaal laba beelood oo walaalaha wada dega in deegaankaasi darar weyne oo maanta ka dhacay halkaasi inuu ay ku dhinteen ilaa iyo haatan inta la xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo xaqiijiyay Axmed Cabdi Faraay dad toban ka badan isla marhaantaasina dhaawac uu badan yahay 20 uu ka badan yahay iyadoo dadkii dhaawaca la kala geeyay cusbitaalada Ceel Afweyn iyo Ceerigaabo in dagaalkan ayaa markii hore si yar uga bilaabay baa la yiri magaalada in darar weyne kadib markii ayana uu la xiriira uu ninku dhuftay in xabada nin kale isagoo u aaninayay in markaasi aana hore ay ahayd dabadeedna sidaasi uu ku fiday. haatan wuxuu ii sheegay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faraay in ciidamadu ay gurmadeen oo haatan la joojiyay isla marhaantaasina ciidamo kale oo dheeraad meel kasta ay kaga soo jeedaan. labadan beeloodna labadii sanadood ugu dambeeyay in deegaankaasi dhowr jeer bay ku dagaalameen laakiin markii ugu dambeysay sanadkii hore bartamihiisii ayaa aad loo gurmaday oo guurtii iyo xukuumadda iyo waxgarad iyo madax dhaqameedba oo markii dambe magihiina la kala xukumay oo la kala qaatay. marka nasiib daradan kale ayaa dhacday in maanta. Axmed sidaad sheegtay dhawaan ayaa labadan beelood la heshiisiiyey oo xukuumadda cuqaasha iyo dadkuba ay u kaceen. maxaa iminka soo cusboonaaday? sida wararkaan ku helayo wuxuun bay dhacday oo ay tahay in si aan lagu talagelin in sida la sheegayo nin ayaa nin xabad ku dhuftay oo aanadii hore ay la xiriidho oo kan xabada riday la leeyahay in qof ehelkii ayaa hore u dhintay sidaas u badana si yar dabadeetna ay meeshii dabadeetna dagaalku uu dhacay. marka arrimahaasi aanaduna had iyo jeer qabaa'ilka Soomaalida wadiga yaqaano way iska fidan laakiin haatan ciidamo badan baa in loo diray in waxaana ugu baaqay gudoomiyaha gobolka Axmed Cabdi Faraay in ay nabadgelyada gacan bir lagu qaban doono oo la adkeyn doono ciidamaduna ay amar ku qabaan in ay markaasi ay aad u sugaan nabadgelyada. waxa kale oo isaguna ii sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye goor aan la hadlayo warka iyo xaqiijisna wuxuu sheegay in ay talaabo amniga ay ku sugayaan ay qaadeen imakaba. ayuu mahadsan yahay.